ما أقول جعيلكو والمتلي ما أوجين دبكيسي وانسماري مسكحدي قلوبتو مال مدقي مانكيو كسكيغو آدميري ما جرى dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda kaliyo ii mugmugay mar wala la simaabuu ma fashiri hayeshee midaydii waan mulkiyey farxaddii maqnayd beri maanta helay jacaylkeeda muuqu dheer waan martiyey xubbigii magolyo wuu mirdhalay macan badantan caashaqay meher ku xidhay watanaanu noqono minan la degay jacaylkuna saaxiibayaal soo dhawaada waxaynu maanta barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa haddii alla awoodda xukumo suuqii weynaa ee waaheen oo ahaa suuqa ugu weyn geyga somalilan islamarkaana ahaa suuqii labaad ee ugu weynaa geyga soomaalida oo hal sano maanta oo kale ku gubtay magaalada hargeysa islamarkaana dhismihiisa uu gebagabo ku dhow yahay ayaynu maanta diiradda ku saari doonaa daawade kusoo dhawow muuqaalka ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogeyn dhibkiise waan samaray maskaxdii qulubtu maal madagay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda kaliyo ii mugmugay mar wala la simaabuu ma fashiri hayeshee midaydii waan mulkiyey farxaddii maqnayd beri maanta helay jacaylkeeda muuqu dheer waan martiyey xubbigii magolyo wuu mirdhalay macan badantan caashaqay meher ku xidhay watanaanu noqono minan la degay jacaylkuna waxaanahay maayir magaaladiisu gubatay hantidiisu baabaaday dhaqaalihii dadkiisu baabaayay laba sano ka hor 1 Abriil 2022 waxay ahayd habeen wax kasta isbedeleen habeen suuqii ugu weynaa Somaliland ee waaheen uu gubtay waa habeen ay sinmeen taajirka iyo tabcadaha Somaliland habeen aad iyo aad u xanuun badnaa oo bulshada Somaliland oo dhan ay maanka ku hayso walida aan ilaawin laba sano ka hor abaara 8 fiidnimo xilliga maxalliga ee Somaliland ayaa waxa qabsaday suuqii ugu weynaa ee waaheen oo ahaa goobta ay dadku wax iskaga weydaarsadaan ayaa qabsaday islamarkaana basbeelay suuqa ayaa ahaa suuqa ugu weyn Somaliland ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogeyn dhibkiise waan samaray maskaxdii qulubtu maal madagay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda kaliyo ii mugmugay mar wala la simaabuu ma fashiri muddo ku dhow 2 sano kadib gubashadii suuqa waaheen waxaa gabagabo ku dhow dib u dhiska casriyeynta suuq aad u weyn islamarkaana la jaan qaadi doona suuqyada casriga ee dunida oo laga dhisayo bartamaha magaalada Hargeysa suuqan oo loogu talagalay dhammaan fasilitiskii uu suuq u baahnaa sida wadooyinka ilaahay naguma keenay haddii uu dabdhaco lagu bakhtiin karayo suuqa islamarkaana gaadiidka dabdamisku ay u soo marayaan iyada oo dhammaan lagu xidhay alabka firefighting-ka ama firefighting waxaa qalad lagu yiraahdo saacadaha dabka sheega ayaa gebagabo waxaa ku dhow suuqan suuq aad iyo aad u bilic sarreeya oo loogu talagalay wadooyinkii dhirtii meelihii gaadiidku ay marayeen ayaa imika gebagabo ku dhow magaalada Hargeysa ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogeyn dhibkiise waan samaray maskaxdii qulubtu maal madagay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda kaliyo ii mugmugay mar wala la simaabuu ma fashiri suuqa waaheen oo ahaa halka xudunta waa dhaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa gebi ahaanba waxa uu ahaa suuq ka samaysan bac iyo cooshad iminka gebi ahaanba dhisaankii waa la bedelay shaqaalihii halkan ka xoogsan jiray ee nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray oo ku dhow 3,000 oo shaqaale ah
ayaa waxaa loogu talagalay in ka badan 4 limanlaab shaqaalihii hore halkan uga shaqaysan jiray in ka badan inay ka shaqaysato suuqan maadaama uu laga faa'iidaystay spaceka sare. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. marka laga tago suuqa Waaheen oo ah xudunta dhaqaale ee Somaliland oo gabagaba ku dhow magaalada Hargeysa guud ahaan waxaa ka socda horumar aad iyo aad u ballaaran isla markaana baaxadda horumarkan la taaban karo ayaa wuxuu isugu gudbay dawrafyada magaalada Hargeysa guud ahaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee magaalada ayaa mar ka dambaysa sii kobcaya bilinada iyo wadooyinka oo aad ugu farabadanaya magaalada Hargeysa marba ka sii dambaysa ayaa waxay indhaha uga qabanayaan horumarka taabagalay ee cid kastaba ay arki karto. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. horumarka ballaaran ee ka socda magaalada caasimadda ee Hargeysa waxaa ka mid ah dhiraynta wadooyinka lighting-ka iyo wadooyinka laftooda oo iyaguna aad u soo qaaday bilicda magaalada wax weyn ka taray. daawadayaal muuqaalkii quruxda badnaa ayaan idinka duubiyey suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee Waaheen oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey iyo qaybo ka mid ah magaalada. intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka markuu kusoo gaadho waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe like iyo comment-iga i saarto. aad iyo aad baad mahadsantihiin meel kastoo aad muuqaalkaygan ka daawanayso. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala. ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogayn dhibkiise waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aadu miray ma jaraha dareenku meelu waday midan daynba waayo ii malmalay muuqeeda keliyuu ii mugmugay marwala.